سلام يا شعبك الصوماليات بعد يونيفرسال xildhibaanada iyo kabtankaba biriga laban nin isqabsatay oo ninba nin wuxuu yiri ku dharbaaxaya midba wuxuu yiri ima dharbaaxi kartid ninba yimid wuxuu yiri war waxa la isku haysto ma taqaan war waxa la isku haysto waa daankaagu yiri horta waxa la isku haysto waa badayni marka xildhibaanada waxa weydiinaya dhibaatada badda naga haysato sideen ugu baxsan karnaa su'aashaatan weydiinaya xildhibaan marna dib ugu soo laabanaya wiilka ugu horeeya su'aalihiisa dabcan ayaan siin doonaa dib ayaan kugu soo laaban doonaa intaad ka xawsato inta kale anaa kuu sheegi doonaa duwaalid xildhibaan maryam baltii ugu dambaysan hadda xasuustaa iyada kale iyada wax ka sheegay tirada ka badisaan dhibaatada badda naga haysta sidee uga bixi karnaa magacaha maamo doctor salaad haddaay waxaa sheegay aada u macneeyey maxay ahaaday doctor xasan sheekh haddaay si fiican u macneeyey soomaalida iyo badaha waxa naga haysta annagoo walba iska ahayn xoolo dhaqato meelaha urdaysa bad 3,000 iyo 300 kor u dhaaftay ilaahay siiyey aanan iska dhaaf bad aan ilaashano iska dhaafa malaayga cunin nimcooyinka ilaahay na siiyey idoo kamid ahanan kalluunka cunaynin marka sidee looga bixi karaa badda nala ka haysto badda nalaga haysto hadda sharci ahaanan annaga u doodaynaa haddaan dawlad soomaaliyeed nahay waxaan leenahay si dulmi ah ayaa baddayna loo ijaartay su-aashaadina in lagu soo noqdo waayo adiga xataa in burta arrintaan lay ahayd si dulmi ayaa baddayna loo ijaartay laakiin waxaan rabaa kiinsi inaan u sheego badda waxaa la yeelay waxaa laga kireeyey shirkad norwejiana iyo shirkad maraykana iyo shirkad faransiisa iyo shirkad talyaaniga laga ijaaray ha laga ijaaray ilaa hadda shaqada ay qabata ma aha inay intay khayraad la baxday khayraadka ay kenya gadata maaha waxaa laga shaqaynayay in badda la baaro la fiiriyo horta maxaa ku jira waxa ku jira intay la egyihiin marka hadda khilaafku dhacayna dawladda soomaaliyeed xeer ilaaliyaha ayaa warqad u qoray 4 shirkadood tii norwejiga waa baxday tii maxay ahaaday faransiiskana way baxday tii maraykankana way baxday kulligood waa ka baxeen shaqada dibay uga laabteen tii talyaaniga ayaan bixin oon soo jawaabin laakiin talyaaniga iyadana waxay joojisay inay baarista sii wado baarista kharashaa gelaayo hadhow kharashkeedaasaa qalqiil gelaayo keliya maahan annaga dawlad soomaali ahaan waxaan u qornay warqaday dawladda u qortay oo xeeralayo u qoray in maalin kasta oo badda soomaaliyeed ay ku jirto shirkad ajnabiga oon xaq u lahayn inay baddaa soomaali dhex joogto berri hadday naloo xukumo inaa iyada laftirkeeda ka qaadan doono maalin kasta lacag ay bixi doonto ganaaxa marka taas waa su-aashii kiisi tan labaad waxa waaye dhibaatada badda naga haysa maxaan ka samaynaa dhibaatada badda naga haysa waa jaahilnimaa na haysa qadiijo iyo indhacadayn nagama maqna haddaan soomaali nahay oo waxaan nahay dad aada u indhacdaga qayli kara laakiin wixii ma naqaano waxa meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan ma naqaano waxaan rajaynaynaa jiilka annaga naga dambeeya iyo jiilalka soo koraayo dad waxaas yaqaano oo cabqariyiina inay kasoo bixi doonaan haddaba gabar soomaaliyeeda dooda ku jirto od aragteen siday mutacalimad u taqaano marka cilmigayna haddou bato waxaa badanaysa xuquuqdayna inaan difaacanaa badanaysa haddii dawladnimadayna xoogaysato adkaysatana waxaa dhici doonta inaan maalin samaysano maxay ahayd maraakiib badda noo ilaaliso baddayna laga soo agdhaweyna ta kale waxa waa